haddaan soo koobo labadii 2002 laba kun iyo labadii ayuu booqasho ku yimid madaxweynihii Daahir Rayaale gobolkan isagoo gobolka jooga maalintii horeysay ayaa dagaal lagu bilaabay waxaana ku bilowday Puntland sidaasuu gobolku gacanta Puntland u galay 2007 ayaa baan magaaladan Laascaanood duleedkayga nimid halkan hadda aan joogno ilaa meeshaad ka soo gasheen boolaha xargaga ayaa laba ciidan oo xoog badan oo midna Puntland leedahay midna Somaliland leedahay isku galeen in badan markii la dagaalamay gacanta magaaladu waxay ku soo noqotay Somaliland iyadoo la 3 sano ku dhow ama 4 sano ka maqnayd intii ka dambeysay 2007 intii ka dambeysay Somaliland baa joogtay magaalada Laascaanood iyadoo hal laami leh wax dhaqaalihi aanay hoos oo la isla liito ayaan soo galay maanta waa caasimad weyn oo ilaa boolaha xargaga ilaa halkaas ee gaadhay laamiyadeeda isbitaaladeeda iskuuladeeda oo aan jirin intii Soomaaliya jirtay iyo inta Somaliland jirtay laga qabtay 10 jeer waxa badan inta Somaliland jirtay inta laga qabtay dadkan meesha joogana way og yihiin dhaqaalihii la geliyay mar quraatu madaxweyne Soomaaliya 32 milyan oo dollar u dhigay iskuulka boordanka dhakhtarka weyn bay leedahay iskuul boordan la waaweyn bay leedahay laabiye badan baa laga sameeyay horumar baa gaadhay dadkii waa maal gashaday yani waxay gaadhay meel aanay weligeeda lahayd gaadhin tuulooyinka aad soo dhaafteen carishay ahaan jireen meeshii ciidanku dagaaba waxa nolosheedu kor bay u kacaysay waayo meeshii shaqaale leh magaalooyinku shaqaalaha ku hormaraan meeshii ciidanku dagaaba waxa weeyaan mudeer bay noqonaysay magaalo dhulka aad soo marteen oo carishay ahaan ee maanta magaalooyinka aragteen dhaqaalaha ugu badan baa gobolkan soo gala waayo ciidamada ugu badan baa jooga shaqaalaha ugu badan baa jooga lacagta ugu badan baa gobol ma gasho aan gobolkan ahayn dhaqaale inta leeg al-shabaab baa joogta oo ku dagaalamaya waxa ka dagaalamaya Puntland dadka deegaanka ee markii hore soo yaacay waa iska noqonaya laakiin dadka ka dagaalamaya waa al-shabaab iyo Puntland iyo kuwa kale oo koonfur ka soo baxsaday oo yimid waxa la yiri barbari baasha barbari la yiraahdo ninkii beertay gubtaa waxa halkan la doonayaa in laga dhigto saldhig al-shabaab oo dadkii xamar laga soo oriyay in halkan ku fidaan oo salka dhigtaan bay doonayaan walaas Puntland oo doonaysa in dib u la soo noqoto gobolka laakiin dabadeed ka dagaalamasa hasaatee ciidamadeedii iyo hubkeedii iyo taakuleynteedii ay joogaan aanu ognahayna qaarna aanu qabanay qaarna aanu ognahay oo waxba naga qarsoonayn halkan al-shabaabta haddaan laga sifayn Ethiopia iyo Djibouti iyo Somaliland ba khatar bay ku tahay awal buuhooda ahayd oo saldhigu ahayd maantana waxay tan isku soo fidiyaan bay doonayaan kuwa marka halkan jooga waxba kama tari kara waayo shalay bay lahaayeen waa kufaar kuwani Cabdimudow la yiraahdo lahaa waa kufaar kuwani dawladda islaamka ka sameeyna si public ay wahay waxa laga doonayana waa taa anagu markaa waxaan difaacnaa nabadgelyada geeska Afrika
waxaan ka walaalnimo inay nimankan ku fidaan Djibouti iyo Ethiopia iyo meelaha kale ku fidaan way halkan saldhig ka dhigtaan baan la dagaalamanaa naguma adka anaga ciidanka qaran haddaan nahay inaan tallaabo ka qaadno oo ka saaro waxaan mushkiladda ay haysataa waxa weyn dadkii baan u doonaynaa magaaladii inay duntana waan diidanahay dadkuna waa dadkayga waxaan doonaa waa dad iyo dal in labadiiba aan khasaare gaadho ayaan la dagaalamana kuwanise uma turayaane waxay doonaan bay samaynayaan haddaan tooda raacno maanta seba may ahaateen waxaan jecelahay dadka reer Puntland aan hore dagaalanoo dhex mareen inay ka waantoobaan faragelinta ay nagu hayaan dadweynaha reer Sool waxaan leeyahay sidaan u ilaalino nabadgelyadiina iyo magaalada aan u ilaalino shalayna 2007diina waan ilaalinay maantana waan ilaalinahay idiguna waxa doonaysaan inay gubato dantiina maaha dhimashadana iyo dagaalna dan inooguma jirto nabadda ku soo noqda ogolaada nabadda wada hadalka ogolaada haddaan wada hadallo waan heshiinaynaa magacaagu saddex sheeg kor qaad codka haye ma xagad ka tirsaneed hadda indhow lama joogo waxa ka tirsanaa ciidanka SC ka tirsanaa ciidanka SC haye way soo qaaday odayga ugu halkii isku Abdullaahi walay soo qaaday haye haddana odayga ugu ma la joogo macnaheedu staafka wardiyaha ciidanka ku jiray haye marka ay dhibaatadan meesha ka dhicin baan meesha la socdo dagaalada iyo ciidanka caduudo ma ahayd ya